dadaalada horu socodka ah ee ay haatan ku tallaabsanayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo khudbad u jeediyay jaaliyadda ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin isbedelada siyaasadeed ee ka socda gobolka Geeska Afrika ee ku dhisan iskaashi, isdhexgal dhaqaale iyo is-ixtiraam iyo sidoo kale wax wada qabsi. madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale jaaliyadda uga xog waramay barnaamijka isxilqaan ee sida mutadawacnimada leh dib loogu dhisayo dhismayaasha danta guud ee dalka, wuxuuna ku booriyay jaaliyadda inay gacan ka geystaan taageerada barnaamijka lagu soo nooleynayo astaamaha qaranka Soomaaliyeed. gabagabadii kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa jaaliyadda kula dardaarmay inay xoojiyaan midnimada dhexdooda ah ayna kala shaqeeyaan dowladda hirgelinta dadaalada ay wado ee dib loogu soo celinayo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed.